waxa uu ahaa tababar muddo socday oo qalab iyo dib u habeynba loogu sameeyay cutubyo ka tirsan guutada 77 ee ilaalada madaxda qaranka. Tababarkan ayaa qayb ka ahaa dadaalada lagu tayeenayo ciidamada qaranka, gaar ahaan kuwa loo xil saaray ilaalinta madaxda iyo xarumaha ugu sarreeya ee dowladda. Gaashaanle dhexe Axmed Idil Jaamac, kaaliyaha guutada 77 oo soo xiray tababarkan, ayaa la wadaagay ciidanka adkeynta sharciga, gudashada waajibaadka la saaray iyo u dhimrinta bulshada. Sidoo kale, taliyaha ayaa ku adkeeyay ciidamada marka laga soo tagay ciidamada kale inay yihiin ilaalada muraayada dalka, ayna muhiim tahay in askari walba bedelo hadba wixii aan munaasab ku ahayn shaqada qaranka. waxaynu qaadanay qalab cusub tababarkii aad muddada soo qaadanay kooban waxaan ku idhaahdaa halkan uu gabagaba inoogu yahay haddii lahayd dufcadaha kale ee maalmaha soo socda geli doona meesha aad idinka banayseen tababar ku qaadateen geli doona ayaa shaqadoodii bilaaban doontaa. idinka waajibkiinnu wuxuu noqon doonaa shaqadiinni rasmiga ahayd iyo ilaalintii madaxda sare iyo waajibaadka amniga ee aynu mas'uulka ka ahayn. waa inoo xidhan yahay tababarkii, waa inoo xidhan yahay waajibaadkii kale haddii alla idmo iyo shaqooyinkii kale aynu haynay baynu gelaynaa. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. guulaysta guulaysta guulaysta. Said Ahmed Abdallah, warbaahinta qaranka.